dowladda Masar ayaa si aad uga hadashay safaaradda maamulka Somaliland ay sheegeen inay ka furanayaan magaalada Qudus. Dowladda Masar ayaa waxay si aad ugu cambaareysay talaabadan sharci darrada ee la diidan yahay taas oo ku saabsan furitaanka waxa loogu yeedhay safaaradda Somaliland ee magaalada barakeysan ee Qudus ee la haysto. Arrintan ayaa si cad uga hormaanaysa sharciga caalamiga iyo go'aanada qaramada midoobay ee quseeya magaalada Qudus, waxaana si toos ah u dhaawacaysaa xaaladda sharci iyo taariikheed ee magaaladaasi barakeysan. Masar waxay mar kale xaqiijisay diidmadeeda buuxda ee tallaabo kasta oo hal dhinac ah oo lagu doonayo in lagu sharciyeeyo xaalad aan sharci ahayn oo ka jirta Qudus, ama lagu siinayo sharciyad qorshayaal iyo hay'ado ka hor imaanaya qawaaniinta caalamiga ah iyo go'aanada qaramada midoobay. Waxa ay sidoo kale sheegtay in bariga Qudus uu yahay dhul Falastiin la haysto tan iyo sanadkii 1967, isla markaana tallaabo kasta oo lagu bedelayo xaaladiisa sharciyo taariikheed ay tahay mid waxba kama jiraan ah oo aan wax saameyn sharci lahayn. Dhanka kale, dowladda Masar ayaa sheegtay in ay si buuxda u taageersan tahay midnimada, madax-bannaanida iyo wadajirka dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyadoo si aad uga hortimid tallaabo kasta oo hal dhinac ah oo wax u dhimaya qarannimada Soomaaliya. Masar ayaa sidoo kale tilmaamtay in waxa loogu yeeray safaaradda Somaliland aysan lahayn wax sharciyad caalami ah, maadaama Somaliland ay weli caalamku u aqoonsan yahay maamul ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isla markaana ayna jirin dowlad rasmi ah oo aqoonsatay dal madax bannaan. Wararka diblomaasiyadeed ayaa sheegaya in arrintan ay dhalisay walaac xooggan oo ka jira dalalka Carabta iyo qaar ka mid ah dowladaha Afrika, kuwaas oo ka cabsi qabo in tallaabooyinka noocan oo kale ah ay sii xumeeyaan xasilloonida geeska Afrika iyo Bariga Dhexe. Masar waxay sidoo kale ku baaqday in beesha caalamka ay qaado mowqif mideysan oo lagu ilaalinayo xaaladda sharci ee magaalada barakeysan ee Qudus, laguna dhowrayo qaraarada caalamiga ah ee taageeraya xuquuqda shacabka Falastiin. Dowladda Masar ayaa xustay in isku day kasta oo lagu abuurayo marxalad ama matalaad diblomaasiyadeed oo aan sharci lahayn gudaha Qudus uu dhaawac ku yahay dadaalada nabadeed ee gobolka, isla markaana uu sii fogeynayo xal waara oo laga gaaro colaadda Falastiin iyo Israa'iil. Sidoo kale, falanqeeyaal siyaasadeed ayaa sheegaya in tallaabadan ay keeni karto cadaadis diblomaasiyadeed oo hor leh oo soo wajaha maamulka Somaliland, maadaama ay sii kordhayaan ambaareynta uga imaanaysa dalalka Carabta, Midowga Afrika iyo dowladda Federaalka Soomaaliya.